waxaan dadka Soomaaliyeed u soo jeedinayaa inay maanta sii gartaan inay gumaysiga arrinta ka sii durugtay xabasho inay gaartay heer ay tiraahdo qof kastoo Soomaaliya hala dilo waxa weeye ereygii murtiyeed ku sheega ahaa ee ugu dambeeyay ee ay ku hadleen dhuuxiisa la dhuuxa waxa weeye xididada ha loo baxsho jiritaanka shacbiga Soomaaliyeed isaga fidnada Afrika ah shacbiga Soomaaliyeed ee xabashidu ay gumaysataa waxay u dirayaan xornimadooda waa beenteed amxaaro iyo cidii ay kaashataaba xidid binu aadam laba siibi karo dalkooda iyaga leh haddii la siibi karo quwadihii ka waaweynaabaa siibi lahaa ummaddii ay jeclaayeen dalkooda iyagu inay degaan oo beddelaan oo ay barwaaqo ka gaari waaye waxa ugu dambeeyey Rhodesia ama Zimbabwe yaa ugu dambeeyey Ian Smith yaa ka qaab daraa ka foolxumaa iyagiyo South Africa iskaashaday maxay u siibi waayeen xididada shacbiga Zimbabwe been weeye waxaan soconaynin weeye dhalanteed weeye riyo weeye aqli yari weeyaan maaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya oo qura arrintu waxay u socotaa waxa weeye shucuubta Soomaaliyeed meelay joogtaba aynu ku baabi'ino ma heli karaan iyagu ma birbay ku qafilan yihiin shucuubta Soomaaliyeed soo iyagu ibn aadam maaha soo qalabkoodii ma haysan karaan soo ma diriri karaan miyeyan u dhowaan karaynin inay eedaan waxa ay ku hadleen ama ay war murtiyeed ku sheega ay ku dhigteen arrintaas waxaan jeclahay intaas inaan iraahdo shacbiga Soomaaliyeed waxa u soo jeedinaya wakaas maaga amaba haddii aynu